الرحمن الرحيم maanta waa 4 Juun 2019 madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu xarunta madaxtooyada kula kulmay wafdi uu hogaaminayo mas'uulka cusub ee UNICEF ee u soo magacaawaday Soomaaliya Werner Scouting iyo xubno ka tirsan saraakiisha UNICEF ee Soomaaliya kulankaasi waxa ka qayb galay wasiirada qorsheynta iyo waxbarashada iyo saraakiil madaxtooyo waxa looga hadlay sidii loo sii wada shaqayn lahaa iyo in UNICEF ay sii joogtayso shaqada ay ka hayso iyo mashaariicda ay ka fuliso Soomaaliya gaar ahaan Puntland iyadoo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani uu u sheegay madaxda UNICEF in wax qabadkooda ay ku saleeyaan baahiyaha deegaamada ka jira oo ka yimaada taas oo uu sheegay inay muhiim tahay si looga jawaabo baahiyaha jira dhinaca kale xubno wasiiro ah oo ay hogaaminayaan wasiirada qorsheynta iyo waxbarashada ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxda UNICEF waxaana ay ka wada hadleen in qorshaha 5 sano soo socota ee horumarinta Puntland lagu jaangeeyo qorshaha waxqabad ee UNICEF si labadaas qorshe la isugu jaangooyin lahaana laga shaqeeyo dhinaca kale madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay Emmanuel Police suduwaha ICRC Puntland oo fadhigiisu yahay Nairobi iyo waliba madaxa xafiiska ICRC ee Puntland Cabditax Fandal waxa laga wada hadlay shaqada ICRC ay ka wado Puntland iyo sida ay wax u socdaan iyadoo iyo sidii shaqooyinkaasi muhiimka ah loo sii joogteyn lahaa aad iyo aad baa mahadsantiin